Yimkinu wuxuu ku bilaabmanayaa ciyaarta dabagaal lagu bixiyay magacaasna waxaa lagu dhex ciyaarayaa xariijimo u eg dabagaal badeedka. Ciyaaryahanadana waxaa loo qaybinayaa laba qaybood, qaar weerartamaya iyo qaar difaactamaya. Kooxuna labadooda lugood ayay caadi ugu ordi karaan. Weerarku markuu xariijinta kale keliya labadiisa lugood ku ordi karo, waxaana loo bixinayaa sirdoonka qarsoon. Tanka dhammaadkiisana weeraryahanadu waxay isku soo ururayaan madaxa dabagaal badeedka. Waxaana looga baahan yahay difaacyahanada inay wada dhaafaan oo madaxa dabagaal badeedka ku istaagaan. Weeraryahanku xariiqa ka dhex baxona uu khasaaraya. Weeraryahanku madaxa dabagaal badeedka kor istaagana uu badiyay. Ciyaarta dabagaal badeedkana qaabkaas ayaa loo ciyaaraa. Qolka ku xigana waxaanu tagaynaa Siyong, nin aan shaqo haysanin oo hooyadii guriga jooga hooyadii wax siiso, mana bixin karo deyntii uu bangiga ka qaatay intuu khamaar ku galay ka khasaartay. Yadiina ilaa inta ka baxaysu sugayaa si uu fiisadeeda u soo qaato lacag ugala baxo. Biinka gelisdo wuxuu arkayaa in hooyadii biinka bedeshay, kana uu ku celcelinayaa wuxuuna gelinayaa taariikhyo dhalasho badan ilaa intuu ka gelinayo taariikhda dhalashada gabadhiisa uuna ku guuleysanaya. La tagayaa si uu khamaar u dhigto tartan farasyo. Tii ugu horeysay noloshiisa ayuu ku guuleysanaya tartan. Kashiirada ayuu siinayaa bakshiish. In nasiib xumadiisa asagoo ka cararaya dad wuxuu ku dhacayaa mid yaroo wareersan jeebadiisa ayayna ka siibaysaa lacagta. Kiisa ayuuna sii wadanayaa ilaa intay ka qabanayaan waxayna ku qasbayaan inuu saxeexo waraaqad inuu ka tanaasulo xubinadiisa. Bixin waayo lacagta lagu leeyahay bishan dhammaadkeega. Ku qasbayaan inuu waraaqad saxeexo inay ka qaadanayaan hal il iyo hal keli. Wuxuu ku noqonayaa gabadhii uu bakshiigka siiyay uuna ka qaadanaya. Wuxuu ciyaarayaa geemka qabashada bombalayaasha sababtoo ah ma hayo lacag uu gabadhiisa ugu iibiyo bombo. Dayadiisoo dhanna uu ku guuldarraysanayaa ilaa intuu ka imanayo wiil yaroo nasiib fiican uuna u qabanaya hadiyad xidhan. Walihiina hadiyad buu uga dhigayaa dhalashada gabadhiisa, laakiin hadiyadii waxay noqonaysaa qaraxad sidii baskoolad oo kale u samaysan. Isuna way ku farxaysaa sababtoo aabaheed baa hadiyad u keenay, laakiin aabaheed uu ka qaadayaa si aynan nafteeda wax ugu yeelin. La ku dhahayaa uskut wala kelma ma waxaagan yar baa lagu kari lahaa. Yarna aabaheed baa rabtay inay wax u sheegto laakiin way iska daynaysaa. Wuxuuna qaadayaa gabadhiisa yar wuxuuna u geynayaa xaaskiisii. Wuxuu soo noqonayaa si uu tareenka u fuulay, laakiin tareenkii uu ka tegay wuxuuna sugayaa tareenka kale soo socda. Ayaa meesha soo fariisanaya wuxuuna ku dhahayaa geemila ciyaar. Harta tagji baa la dhahaa waxayna ka kooban tahay laba kartoon. Midna bileeyarka ayaa gacanta ku haysanaya, midna dhulka ayaa la dhigaya. Ciyaaryahanku kartoonka uu gacanta ku hayo ku dhufta kartoonka dhulka yaala uu rogo uu badinaya. Uu rogi kari waayana uu khasaaraya. Wuxuuna ku dhahayaa Siyong haddaad iga badisi waxaan ku siinayaa 100,000 oo waan. Siyong nasiibkiisu tijaabinaya sida caadadeeda uu khasaaraya. Kalena markuu tijaabiyo wuxuu ku guuleysanaya inuu kartoonkiisii rogo. Ninku guuleysto Siyong wuxuu ku dhahayaa ma hayo lacagan ku siiyo. Wuxuuna ku dhahayaa qaab kale ayaa jira. Siyong ayuuna dhirbaaxa ka jaraya. Madiyo qof mad maqli jirteen wallahi waa kan mar labaad ayuu ku khasaaraya. Dhirbaaxa ayaa laga jaraya. Mar kastana uu ku khasaaraya. Dhirbaaxa ayaa lala dhacaya ilaa uu ugu dambeyn ka guuleysto. Ayuuna u farxaya wuxuuna ka qaadanayaa 100,000 ee waan. Ninkuna wuxuu ku dhahayaa aaba ciyaarka dambe haddaad u baahan tahay lacag geeman badan oo kalan ku haya. Ku dhahayaa taariikhdaadoo dhan waan hayaa waana ogahay inaad tahay miskiin ee xaaladu jeexjeex. Wuxuuna ku dhahayaa taxi ayaad ka shaqaysaa laakiin lacagta ka soo gasha adigaba kuguma filna. Wuxuuna ku dhahayaa waan ogahay inaad saxeexday heshiis binadaada qaar ka mid aad uga tanaashusay haddaad bixin weydid lacagta 160 milyan oo luwa. Ku dhahayaa gabadhaadu waxay la nooshahay xaaskaagii hore. Wuxuuna siinayaa kaarkiisa. Wuxuuna ku dhahayaa haddaad rabtid inaad malaayiin heshiiso wuuna ka tegayaa. Wuxuuna u farxayaa hooyadii iyo asagana casho ayuu u soo iibinayaa. Waxayna hooyadii u sheegaysaa xaaskiisa iyo gabadhiisa inay u wareegayaan Amerika sanadka soo socda. Wuxuuna soo xasuusanayaa inay gabadhiisu wax u sheegi rabtay laakiin iska aamusay. Waxayna hooyadii ku dhiirigelinaysaa inuu shaqayso si uu gabadhiisa u kafaala qaado. Siyong xaaladda ayaa kusoo yaraanaysa asagoo ka fikiraya ayaa habeen kusoo noqonaysa. Ninkii ayuu wacayaana wuxuuna ku dhahayaa diyaar baanu ahay inaan ka qayb galo geemamkan. Wuuna sugayaa wadada ayuu ku sugayaa. Wuxuuna darawalku ku dhahayaa lambarkii sirta ee telefoonka lagugu sheegay ii sheeg saad ugu sheegana uu suuxinayaa. Na arkaynaa in dad badan oo hurda meesha ku jiraan ninka gaadhiga wada mooyaane sababtoo ah bahal ayuu xidhan. Wuxuu soo kacayaa asagoo qaacad weyn ku dhex jira. Wuxuuna arkayaa dadka inay isku wada dhar xidhan yihiin. Lambarkiisuna 456 yahay. Sana kamarad u gaaro ilaalinaysa ayaa jirta. Siyong uu kacana wuxuu arkayaa shaashad weyn ee ku qoran tahay cadadka dadka ku jira oo 456 ah. Wuxuuna arkayaa Siyong odaygu ayeela wuxuuna ku dhahayaa maxaa meesha ku keenay seed meesha ku soo gashay. Wuxuu ku dhahayaa odaygu Siyong oo madaxa barar ayaan ku leeyahay mar dhowna waan dhimar rabaa waxa kuma khasaaraya haddaan geemka ka qayb galo. Wuxuu arkayaa gabadh uu nin gangiisara dilayo. Wuxuuna arkayaa inay tahay gabadhii lacagta ka xaday. Uu soo dhexgalayaa si uu lacagtiisa u weydiisto. Siyong oo naagtii la hadlay waxa soo galay niman badan oo wajiga ku wada xidhan wax wada oo wajigiisa afargeys ku sawiran yahay ayaa bilaabay inuu dadka la hadlo. Wuxuuna ku dhahayaa kulligiin waxaad galaysiin
6 geem oo kala duwan 6 cisho gudahood wuxuuna ku dhaxayaa tartanka ninka ugu guuleysta lacag badan ayuu qaadanayaa saasuu tartanku u dhammaadana wiiladiini iyo boorsadiini ayaan ili soo celinaya kamida nimankii loo qodbadaynaya ayaa dhahaya xaqiiq hadalkaaga uma arko kumana rumaysanayo ninka face mask xidhanna wuxuu ku dhahayaa lacag badan ayaan lagu leeyahay waana la sawaray ninkuu geemna ciyaaraya ninkii lacagta siiyeyna way ku kalsoonaadeen lamarka geemkana asagaa soo siiyey si ay geemka uga qayb galaan wuxuu kale doorasiinayaa inay ku noqdaan noloshoodii xumeeda faqiirnimada ama inay geemka sii wataan lacag badan helaan wuxuu weydiinayaa inta ay lacagtu dhan tahay waxayna soo saarayaan bahal weyn bahashan ayayna lacag ka buuxsami doontaa ayay ku dhahayaan si joogana waxay xaq u leeyihiin inay geemka horey usii wataan ama ay iska daayaan hadday rabaanba reega koowaad ciyaartuna waxa weeyaan inuu ciyaaryaha ku joojin ciyaarta labaadna waxa weeyaan in laga bixiyo ciyaaryahanka diiday inuu ciyaar geem saddexaadna waxa weeyaan inuu geemku joogsanayo haddii dadka badan isku raacaan in la joojiyo geemka markay dhameeyaan saxiixa heshiiska waxay tagayaan qaacada lagu ciyaarayo waana la sasawirayaa yoona wuxuu arkayaa ninkii saaxiibahayan yaraantiisa magaciisana Sion la dhaho yoona isagoo xaalkiisa wareysos leh wuxuu ku dhahayaa saaxiibkii mar dhow ayaan ku warrami doona ciyaartii ayaa bilaabanaysaa garoonkana waxaa ku jirta madaamad weyn saada usii jeesato waa in lasoo cararaa markay soo jeesatona waa in la istaagaa meesaa ku socdaan ilaa intay ka gaadhayaan xariiqa dhammaadka haddii kale way dhimanayaan naftooda ayay ku waayi kaliyaatoo loo ogol yahay inay soo cararaan markay ay madaamadu dhahdo fallaadh cagaara fallaadh casaana markay dhahdana waa la istaagaya artuna way bilaabanaysaa dadkuna waa cararayaan laakiin markay caruusadu aragto nin arta ayaa laga bixinayaa waxaana la maqlayaa xabad rasaas dhawaqeegii ninkiina dhulka ayuu ku dhacay lama fahansana waxa dhacay ninbaa usoo dhawaanaya wuxuu fiirinayaa ninka laakiin wuxuu arkayaa ninkii afkiiyo dhiig ka socdo saad u arko dhiiga naxaya uu cararayaana kiin bombaliga ayaa dilaysa walaa waxa ku xidhan raadaar dhaqdhaqaaq dareemaya dadkiina way cararayaan rasaastii ayayna madaamadii la dhacaysaa sababtoo ah dadku way wada naxeen waana kala carcararayaan hogaamiyahana wuxuu daawanayaa dadkiiyo wada dhimanayaa aad iyo aad ayuuna ugu farxayaa bombaluuna ciyaartii ayay sii wadaysaa ninka ugu horreeya dhaqaaqana waa odaygii waayeelka kalena odaygu wuxuu sameeya ayay samaynayaan waynad laba soconayaan yoona nin meyda ayaa kor yaalla wuxuu isku dayaa inuu iska kor qaado